Soomaaliya iyana doorasha ka socota way dhibaatada iyaga wariga marbayaan Allahu saara dhibaatooyinkooda wanaagooda jecelahay oo walaaladeen Soomaaliya xumaantooda ma jecelin dabka iyaga ka qarxawayna soo gaaraya barwaaqaduna waa soo gaar kartaa laakiin mid baan ku leenahay mid doonay fariin inaan aad ugu diro maanta aynu cadayno Soomaaliya haddii nahay mucaaridkooda iyo muxaafidkooda madowga mucaaridka xamar jooga iyo madaxweynahooda iyo goboladooda mid baan ugu direynaa haddii aynu nahay Soomaalina waynu nahay darisla aynu nahay dadna aynu isku xigno danteena istidoodii laba dawlad naga dhigtay cilmiga mid baan meesha qabanin marka dhamaantiin isku raacsantihiin baarlamaanka Soomaaliya ka soo jeeda xamar laga dhex dooranaya banaadir bal arintaasi markaad ereyga leedihiin miisaanka ugu melka dhacwlaya waa garanaysaane maxaa Soomaaliya ugu quureysaan ereyga meesha miyuu qabtaa meel walba jaaliyadu way joogtaa halkan ba jaaliyad reer Soomaaliya ah oo xamar ka timid oo Kismaayo ka timid oo Boosaas ka timid oo adduun iyo baac mushtar iyo aqoon qaar ka bartay way joogaan waa jaaliyad walaahay nool laakiin hawlaha siyaasadeed Soomaaliya ma soo galaan sababta aad u dafareysaan qaranka Soomaaliland oo nusada sare kala maqlimo ogtiin oo dhamaantiin bogaadisaan waxa waranaysaan ay isku raacsantihiin xildhibaanada ka baarlamaanka Soomaaliland ka matala war idinku miyaan ilaahay ka yaabin waa ogtiin inaan cilmeesha siyaasadda matashaani joogin kuwa tagay waa jaaliyad Soomaaliya la jooga oo shaqo tagay waxay la mid yihiin jaaliyadda Kenya joogta ta Djibouti joogta ta Addis Ababa joogta ta London joogta ta Abu Dhabi joogta hadday ka shaqaysanayaan dalkood ma soo shaqaysanayaan kuwa waaweyn ugu shaqada badanina iyagoo halkaa jooga oo baaraan baan u isirmaan ma halkan daaraha soo dhigtaan ku soo taageerada yaa ilaahay wardeta madaxweynaha iyo xukuumadda farmaajo qolo ku eedeynayna dhamaantood waad ku eedeynayna mid meesha qabata ma aha waxa sayid ka sii liita dadka waaweyn ee Soomaaliland ee halka hadan ka gashay ee uu shaqo tagay waxa doonayaan baa ka qabtaane ee qaadanaya waxa xamar xamar laga doorto baaraan baan noqonaynaa waxa ku doonaya anagu ninka san la yaaba dad waaweyn inta ugu han weyn oo soo garayna jooga meesha marka xamar baa laga dooranayaa cid baan matalaya inuu qaato waan idinka weera arintaana waxa la irma geeyne de waxaan xumaan ahayn iyo nac ay dadku beeraysan baad si abooysaane halaga daayo qolada inta soo diraya arrimaha Allah u fudeeyo inaga de waxa noo gudboon qarahan inaynu dadaalka wadno nabadgelyada waxa lagu gaaraa ilaa shano doorashooyinka dabayshoodana ka dhigna kaftan walaalimo ee aynaan ka dhigin de qaran isku haraamo